sideedii bishii lixaad 793 markay taariikhdu ahayd oo ah qarnigii sideedaad jasiirad nabdoon oo lagu magacaabo Lindisfarne oo ku taala xeebta waqooyi bari ee Ingiriiska ayaa subaxnimadii hore ku waabirisatay cod aanay hore weligood u maqlin. goobtan waxaa loo yaqaanaa jasiiradda barakaysan. ciidan hubeysan oo wata doonyo dhaadheer oo afkooda u samaysan yahay sida maska draagonka ayaa si sanqadh la'aan ah hal mar dhinaca xeebta uga soo tallaabay, waxayna soo gaadheen ciidda korkeeda. daqiiqado gudahood ciiddii jasiiraddu waxay isu beddeshay dhiig cas. wixii dad joogayna 3 saacadood gudahood kala badh ayaa dhintay. dhismayaashii jasiiradda dambas ayay u beddeleen. wixii dahab iyo hanti taalay jasiiraddan iyagoo wata ayay dib doonyahoodii u raaceen. dhammaan qaaradda Yurub waxaa gaadhay argagax iyo isweydiin ah, maxay ahaayeen bahalahani? 3 qarni waqti gaadhaya. marka la maqlo magaca Viking waxaa lasoo xasuusanayay dhimasho iyo dhiig daadanaya. laakiin ciidamada Vikingsku inay wax dilaan keliya kuma aysan koobnayn. waxaa ku jiray injineero xirfad badan u leh nashqadaynta iyo dhismaha, qaar dimuqraadiyadda yaqaan oo sharciyo sameeya, iyo khubaro dunida meelo badan gaadhay maabka dunidana wax badan ka bedelay. Documentary-gan oo dhowr qaybood yeelan doona waxaa ku jira dhiiggii ugu horreeyay ee Vikingsku daadiyeen ilaa dagaalkoodii ugu dambeeyay. tani waa sheekada Vikingska oo dhammaystiran. si aynu u fahanno sababta ka dambaysa in Vikingsku iyagoo caraysan ay Yurub dhinac walba dhiig ku soo daadiyaan, aynu ku laabanno xaqiiqada qadhaadh ee dhulkooda hooyo ka jirta. Vikingsku asal ahaan waxay ka soo jeedaan wadamada Scandinavian-ka la isku yiraahdo ee Norway, Denmark iyo Sweden. wadamadani waa wadamo muuqaal ahaan qurux badan, laakiin waxaa ka jira cimilo aad u daran oo qabow iyo baraf ah. waa dhul buuraley ah oo dhagaxu ku badan yahay, gaar ahaan Sweden iyo Norway oo 70% buuraley ah. in wax lagu beertana ay aad u adag tahay. wadamadan dhexdooda in laga helo meel wax lagu beerto waxay ahayd barwaaqo aan la heli karin. qoysaskii ugu wanaagsanaa waqtigaasina waxay lahaayeen hal beer. marka aabbaha qoysku geeriyoodana waxay lahaayeen caado ah in wiilka ugu weyn reerka uu beerta qaato. wiilashii kale ee isaga ka yaryaraa sidaasi ayay dhexda ugu soo dhacayaan oo wax beera ma helayaan, hanti kalena meesha ma taallo. laakiin wadamadii kale ee qaaraddan Yurub waxaa ka jiray arrinkaasi mid ka duwan. wadamada reer Yurub markaasi dhul beereedka way kaga wanaagsanayeen Scandinavian-ka, oo in wiil walba beer helo arrin iska caadi ayay ahayd. wiilashii yaryaraa ee qoysaska Scandinavian-ku iyagoo markaasi cidhiidhiga ka baxsanaya waxay ku qasbanaadeen inay xal helaan. maadaama ay wadamadani Scandinavian-ka ee Norway, Denmark iyo Sweden dhammaan bado leeyihiin, waxay ku qasbanaadeen dhalinyaradani inay badda galaan, sidaasina ay maal ku soo helaan. dhammaan badmaaxiintii waqtigana jiray waxa ay ka baqayeen inay badweynta gudaha u galaan, waxayna ku safri jireen meelaan xeebta ka fogeyn iyagoo ka baqaya inay badweynta ku dhex lumaan, sidaasina meel xeebta u muuqata ayay ku safri jireen. taasina waxay sababaysay in badmaaxayaashu aanay meelo fogfog ka gaadhin safarada biyaha badda. laakiin Vikingska maadaama ay haysato duruuf aysan wadamadan qabowga badan ugu sii dhex qatanaan karin, waxay ku dhiiradeen inay doonyahooda looxa ka samaysan badweynta gunteeda ugu dhaadhacaan. cabsida laga qabay in lagu lumo badweynta iyo barwaaqada ay heli karaan haddii safarkooda guulaysto, waxay doorteen inay barwaaqada ay raadiyaan. si ay uga badbaadaan halista ay leedahay inay badweynta ku lumaan, Vikingsku waxay doonyahooda afka hore kaga xidheen dhagax loo yaqaan Icelandic spar ama sandstone. waa dhagax sida quraarada ama dhalada u cad, gudihiisana ishu ay ka gudbayso. dhagaxani wuxuu ka samaysan yahay maadada calcium carbonate. sida magaciisa sandstone oo dhagaxa qoraxda la micnaha ka muuqata, wuxuu dhagaxani awood u leeyahay inuu qoraxda ama dayaxa kaa tuso meelaan isha bini'aadamku ka arki karin. Vikingsku iyagoo awoodda dhagaxani ka faa'iidaysanaya ayay doonyahooda afka hore kaga xidheen. si aanay qoraxda ama dayaxa uga luminna, dhagaxaasi ayaa u fududeeyay inay badweynta Atlantiga ceeryaamadeeda iyo habeenadeeda madow si sax ah ugu dhex safraan. Vikingsku inta aanay safarkooda bilaabin waxa ay samaysteen doonyahooda looxa ka samaysan. waa doonyo dhaadheer,
miisaankooduna fudud yahay. Waxay si fudud uga gudbi karaan mawjadaha waaweyn ee badweynta. Waxay u samaysan yihiin qaab afka hore u dheer, loona nashqadeeyey sida maska daraagonka, taasi oo dadku markay arkaan cabsi ku beeraysa. Maadaama cuntada ay wataan ay kooban tahay, cimiladuna qabow badan leedahay, inay badweynta ku dhex lumaana ay halis weyn ku tahay. Waqtiguna yahay qarnigii 8aad oo qalab badmaaxayaashu isticmaalaan aanu jirin. Vikingsku iyagoo isticmaalaya aqoontii markaasi badaha loo lahaa, si aanay wadada saxda uga lumin, waxay kaashanayeen xidigaha, qorraxda, dayaxa, dabaylaha, shimbiraha badweynta korkeeda duulaya, kolonyooyinka iyo jidadka libaax badeedku maraan, iyo kalarka biyaha ay ku dul socdaan markaasi. Intaasi oo shay marka ay si wada jir isula kaashadaan, waxay u saamaxaysay inay cabir saxan helaan. Vikingsku waxay ka warqabaan in gudaha qaaradda Yurub ay ka jiraan wadamo iyo boqorro maal badan haysta, ganacsi badanna leh. Kiniisadaha wadamadaasina dahabka iyo macdanta dhex taallaa aan la waardiyeyn oo markaasi kiniisadaha albaabadoodu furan yihiin iyagoo dahab iyo hanti badan iyo halkaasi dhex waran tahay. Vikingsku marka ay rabaan wadamadaasi mid ka mid ah inay weeraraan, dhinaca xeebta dagaalka kama soo bilaabayaan, laakiin si lama filaana magaalooyinka ayay iyagoo soconaya gudaha u soo gelayaan. Hantida iyo dahabka ayay guranayaan. Wixii isku dayay inay hor istaagaanna dhiigooda ayay dhulka ku shubayaan. Vikingsku waxay weerareen dhammaan wadamada qaaradda Yurub. Waxay u tallaabeen Asia iyo America, laakiin weerarkoodii ugu horreeyay ee taariikhdu diiwaan gelisay ayaa ahaa mid la yaab leh. Taariikhdu waa dabayaaqadii qarnigii 8aad, 793 bishii 6aad 8deedii. Vikingsku doonyahoodii dheereynayay ayay badda la galeen, waxayna u jihaysteen dhinacii galbeed ee Scandinavian-ka. Waxay ku sii jeedaan jasiirad ku taalla boqortooyada Ingiriiska. Waa jasiiradda Lindisfarne oo ku taalla dhinaca xeebta waqooyi bari ee boqortooyada Ingiriiska. Waxaa lagu magacaabaa The Holy Island oo la micnaa jasiiradda barakaysan. Waxaa ku yaalla kiniisad weyn oo Kristan ah, waxaana gudaha kiniisadda yaalla dahab, silfar iyo cunto aad u badan. Waxaana ku sugan halkani wadaadadii kiniisadda. Waqtigan iyo wixii kasii horreeyay reer Yurub waxay aaminsanaayeen in kiniisadaha iyo goobaha kiristaanka aan la weerari karin. Sidaasi awgeedna wadaadada jooga gudaha jasiiraddani wax huba ma haystaan, ismana difaaci karaan. Laakiin Vikingsku maaha kuwa diimaha ixtiraam u haya. Waxa kaliya ay fahmaanna waa hanti meeshii ay ka heli lahaayeen. Vikingsku waxay soo gaareen jasiiraddii maadaama ay wateen doonyo qaab cajiiba loo farsameeyey. Uma baahna inay badweynta kaga soo tagaan doonyaha. Taa beddelkeeda waxay doonyahooda ula soo tallaabeen dhinaca xeebta ilaa ay ciidda jasiiradda soo gaadheen. Waxay galeen kiniisaddii, waxayna halkaasi ku laayeen wadaadadii joogay kiniisadda iyo gudaha jasiiraddani. Waxay gurteen hantidii taalla jasiiraddani. Waxay qaateen dahab aad u tiro badan iyo silfar. Waxay kaxaysteen dadkii jasiiradda qaar ka mid ah, iyagoo addoom ahaan u qafaashay. Markaasi ayay gubeen dhammaan dhismayaashii ku yaalla jasiiraddani. Markii ay hantidii iyo addoomihii doonyihii ku gurteen, dhismayaashiina dambas ka dhigeen, inta aan reer guuraagii deegaanku qayladhaanta bilaabin. Si aan lagu soo gaadhin halkani ayay jasiiraddii ka ambabaxeen, iyagoo wata hantidii iyo addoomihii ayayna badweynta dib u galeen. Dhacdadan oo ahayd tii ugu horreysay ee Vikingsku meel Scandinavian ka baxsan ay weerar ku tagaan, ayaa shoog ku noqotay dhammaan dadyowga reer Yurub. Diinta Kiristaanka oo gudaha qaaradda Yurub awood weyn ku lahayd ayay qaab aan la filayn u weerareen. Ka takhalusidii boqorka uu ka soo horjeedo iyo adoonsigii ay dhigyacabintii Vikingsku dadka Yurubiyaanka iyo caasimadda Dublin kaga dhigeen xarunta ugu weyn ee lagu kala iibsado dadka nool. Qaabkii naxdinta badnaa ee boqorradii waaweynaa ee Ingiriiska iyo ciidamadoodu u burbureen misna dagaalkii u sii wadeen ilaa ciidankii Vikingska koodii ugu dambeeyay laga sifeeyo dhulkani. Ku dhawaad 3 qarni wadamada England, Scotland iyo Ireland waxay dhibanayaal joogtaa u ahaayeen dhigyacabintii Scandinavian-ka. Vikingsku wadamadan dadkooda iyo hantida dhex taalla marka la isku daro waxay u arkayeen abaalmarin ay iyagu si gooniyo u leeyihiin. Markan dhulalkan England, Scotland iyo Ireland waxaa ku hirdamaya
laba kooxood waa Celtic Kingdomskii oo ahaa dadyow asalkoodu halkan kasoo jeedo iyo dadyowgii Anglo-Saxonka la isku odhan jiray ee markii boqortooyadii Roomaanku ka baxday dhulkani halkan sidaa ku yimi. Markii doonyihii dhaadheeraa ee Vikingsku dhulkan soo gaadheen, kaliya boob iyo tuugnimo kuma aysan ekaane waxay keeneen dhibaato intaasi ka weyn. Waxay burburiyeen dhaqamadii meesha ka jiray, diimihii iyo nidaamyadii ciidamada ee dadkani lahaayeen. Dhibaatadii ay halkan ka geysteen Vikingsku waxay socotay qarniyo badan ilaa jiilashii cusbaa ay qaab fikirkooda iyo siyaasadooda ay saameeyeen. qaybtan waxaa ku jira masiibooyinkii ay Vikingsku ka sameeyeen dhulalkii Ingiriiska iyo Ireland. Kadib weerarkoodii ugu horreeyay ee 793 ay jasiiradii Lindisfarne hilfaha ugu laabeen, dahabkii iyo silfarkii yaalay gurteen, dadkiina qaarna dileen qaarna qafaasheen. 2 sano uun kadib oo 795 waxay soo qaadeen weerarkoodii labaad. Markan waxay yimaadeen 2 jasiiradood, waa Iona iyo Rekru oo ku yaala Scotland iyo Ireland. Labadan jasiiradood waxaa degan dad tujaara, dahab iyo maal badanna haysta, laakiin aan hubaysnayn isna difaaci karin. Markan waxay wataan qorshe cusub, waa ku dhufoo ka dhaqaaq. Jasiiradihii markay soo galeen, dadkii ayay dil ku bilaabeen, hantidii taalay oo dhanna way rarteen. Dadka intii hadhayna addoom ahaan ayay u kaxaysteen. Intii aan warku boqorka guud ee deegaanka gaadhin, sidaasina aanu boqorku ciidamo u qaylo dhaamin oo aan halkan loogu soo gaadhin. Dahabkii, maalkii iyo addoomihii ayay doonyihii dhaadheeraa ku gurteen, sidaasi ayayna ku ambabaxeen. Muddo 10 sano ah, nimankan Vikingsku wadamadan Ingiriiska iyo Ireland waxay ka noqdeen masiibo dabiici ah oo sanadkiiba dhowr jeer la filanayo. Xilliyada qabowaha marka ay tahayna waxay ku noqon jireen Scandinavian-koodii, halkaasi ayayna qabowga kaga dhuuman jireen. Laakiin arrinkaasi waa uu soo dhamaaday. Markan qorshihii ahaa inay sanadkii dhowr jeer yimaadaan way joojiyeen. Waxay xeryo iyo fadhiisimo ay degaan ka samaysteen hareeraha webiga Ireland iyo xeebta Ingiriiska. Sheekadii ku dhufoo ka dhaqaaqna halkan ayay ku dhamaatay. Waqtiga qaboobaha xeryahan ayay ku jiraan, meel kalena uma socdaan. Taariikhdu markay ahayd 865 wax walba way sii foolxumaadeen. Ciidamadii doonyaha saarnaa ee meelaha kala duwan ka imanayay way joogsadeen. Ciidamo aad u qalabaysan oo kala Danish ka yimid Denmark iyo Norwegian wada socda ayaa dhulkani Ingiriiska soo degay. Ciidamadan waxaa kala hogaaminaya Halfdan iyo Ivar the Boneless. Hawshu markan boob iyo dil way dhaaftay. Vikingsku waxay u socdaan gumaysi inay geliyaan deegaanadani. Dadyowgii dhulkani Ingiriiska iyo Ireland deganaa ayaa iyagoo qoomkan la yaaban u bixiyay ciidamadii gaalada waaweyn. Boqorradii iyo nidaamyadii ka jiray dhulkani ayaa markan waxay u burbureen si aan la filayn. Taariikhdu markay ahayd 867 Vikingsku waxay qabsadeen magaalo York la dhaho oo ku taal waqooyiga Ingiriiska. Magaaladan waxaa haysta oo ka taliya Anglo-Saxonkii boqortooyada Roomaanka kadib ka kala yimi qaybaha Yurub, sidaasina halkan ku soo degay. Markan Anglo-Saxonku waxay leeyihiin boqortooyo Northumbria lagu magacaabo. Marka boqortooyadani waxaa ka dhex taagan dagaal sokeeye oo u dhaxeeya boqorro Anglo-Saxonka dhexdooda ah. Vikingsku dadkii meesha deganaa ee labada dhinac isku haystay ayay cagta mariyeen. Boqorradii kala hogaaminayayna si fool xun ay dadka hortooda nafta ugaga qaadeen. 869 miilaadiga markay taariikhdu ahayd, Vikingsku waxay qabsadeen deegaanka East Anglia oo ah cirifka bari ee Ingiriiska. Boqorkii halkaasi haystay oo la odhan jiray Edmund, intay si xun dadka hortooda ugu ciqaabeen ayay ugu dambeyntiina nafta dhaafiyeen. 874 markay ahayd, boqortooyadii ugu awoodda badnayd dhulkani oo la odhan jiray Kingdom of Mercia ayaa culayskii Vikingska awgeed ku duntay. Markay 877 taariikhdu maraysay, dhammaan boqortooyooyinkii Anglo-Saxonka waxaa ka soo hadhay hal boqortooyo. Waa boqortooyadii Wessex oo uu hogaaminayay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Alfred, laakiin noqday boqor
tala ku caddaatay oo khaatiyaan ka taagan nimankan Vikingska ee aan waxba reebayn. Qaboobihii 878 weerar ay Vikingska ku soo qaadeen hogaamiyahan dhalinyarada ah waxay ku qasbeen inuu naftiisa la cararo oo deegaankiisa ka cararo iyadoo lagu jiro waqtigii ugu adkaa meel kasta uu ku dhuuman lahaana ay baraf iyo qoyaan tahay. Boqor Alfred isagoo ku dhuumanaya kaymaha qabowga iyo barafka badan ayuu isku duburiday ciidankiisii la jebiyey wixii ka hadhay. Qayladhaan ayuu u dirsaday dadkii Anglo-Saxonka ahaa intii awood haysay. Isagoo ciidan isku duburidan wata ayuu sanadkii 878 miilaadiga dagaal kaga hor yimid ciidankii Vikingska oo uu hogaaminayay Guthrum. Dagaal saacado badan qaatay boqorkii da'da yaraa ee Alfred ayaa ciidankii Vikingska si aan la filayn uga adkaaday, guul ballaaranna ka gaadhay dagaalkii. Boqor Alfred markuu guul ballaaran gaadhay, isaga iyo ciidankii Vikingska oo awood badan leh weli waxay gaadheen heshiis dhexdhexaad ah. Vikingska hogaamiyahoodii Guthrum maadaama markii hore isaga iyo ciidankiisu aanay diin haysan wuxuu ogolaaday inuu diinta Kiristaanka qaato, sidaasina ayaa lagu baptize gareeyay. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in dhulka Ingiriiska ay kala qaybsadaan. Vikingsku waxay qaateen oo xukunkiisa la wareegeen qaybaha waqooyiga iyo bariga Ingiriiska. Boqorkii da'da yaraa ee Alfredna wuxuu qaatay oo xukunkiisu xaqiijiyay qaybtii koonfurta iyo galbeedka Ingiriiska. Boqor Alfred intaa wixii ka dambeeyay wuxuu dhisay ciidamo awood badan oo ilaaliya xeebaha Ingiriiska si aan mustaqbalka weeraro dambe aanu dhulkan si lama filaan ula kulmin ee uu u noqdo dal u diyaarsan weerarada mustaqbalka. Xaaladii Ingiriisku sidaas ayay ku degtay, laakiin Vikingsku waxay u jihaysteen oo weeraradii boobkii iyo dilkii u jeediyeen jasiiradihii deriska la ahaa Ingiriiska. Vikingsku isla markiiba waxay weerar ku qaadeen gudaha Ireland. Waxay tageen deegaan ay degan yihiin in ka badan 100 boqortooyo oo dadkii Irishka dhaladka ah ka soo jeeday. Dadkani way iska difaaceen Vikingska oo weerar bay kala hortageen, laakiin nasiib darro maadaama ay Vikingsku awood badan lahaayeen way ka saari kari waayeen dhulkooda. Vikingsku waxay xarun ciidamadoodii doonyuhu degaan ka samaysteen qarka webiga Lefey. Waa goobta mustaqbalka markay ballaaratay noqotay magaalada Dublin, isuna bedeshay caasimada dalka Ireland. Vikingsku deegaankoodan ay samaysteen ee Dublin waxay ka dhigeen xaruntii guud ee ganacsigooda iyo suuqii addoomaha ee galbeedka Yurub. Intii Vikingsku joogeen gudaha Ireland, dhibaato weyn ayaa haystay dadkii Irishka ahaa ee dalkan deganaa. Waxay u kala qaybsanaayeen boqortooyooyin yaryar oo iska soo horjeeda, iyaguna markaasi dhexdooda dagaal la isla galaa. Boqoradani ciidanka Vikingska cadow shisheeye maysan arkayn maadaama ay iyagu isku mashquulsanaayeen. Qaarkood ayaa ciidamada Vikingska heshiis la galay si ay kuwa kale uga adkaadaan. Ciidamadii Vikingskuna qorshahooda ayay hoosta ka wateen, waxayna rabeen inay dalkani oo dhan gacanta ku dhigaan. Ciidamadii Vikingsku magaaladoodii Dublin waxay ka samaysteen awood ballaaran, waxayna saameyn weyn ku yeesheen siyaasaddii Ireland. Laakiin saameyntoodii iyo hamigoodii ahaa inay dalkani qabsadaan waxay soo afjarantay 1014 markay ahayd taariikhda miilaadiga ah. Waa markuu dhacay dagaalkii Clontarf. Boqorkii ugu sarreeyay boqorada Irishka, Brian Boru. Brian wuxuu ahaa nin da'a, laakiin aragti fog leh. Boqorkani wuxuu ciidamadiisii ku soo jeediyay xaruntii Dublin ee ay deganaayeen ciidamadii Vikingsku. Boqorkani wuxuu aaminsanaa in la sameeyo hal boqortooyo oo Ireland oo dhan iyadu ka talisa. Dagaal ballaaran ayuu la galay Vikingska. Maadaama uu nin weyn ahaa, isagu dagaalka kuma jirin, laakiin go'aanka iyo qorshaha ayuu lahaa. Intii uu dagaalku socday ayaa ciidamadii Vikingsku ugu yimaadeen teendadii uu deganaa. Halkaasi ayayna ku dileen, laakiin dagaalkii waxaa ku gacan sarreeyay ciidankii boqor Brian. Sidaasina waxaa ku wiiqantay awooddii iyo rajadii Vikingsku ay ku rabeen inay dalkani Ireland ku qabsadaan. Dhinaca Scotland, Vikingsku waxay qabsadeen jasiirado badan oo waqooyiga iyo galbeedka Scotland ah, taasoo sababtay dadkii deganaa halkani ee ay kala xukumayeen boqorada kala duwan ee iska soo horjeeday inay u midoobaan sidii ay isaga celin lahaayeen Vikingska. Midowgii boqoradani waxaa ka dhashay inay samaystaan boqortooyo ay wada leeyihiin. Waa boqortooyadii Alba oo isu bedeshay noqotayna Scotland la yaqaano maanta. Vikingsku intii ay joogeen Ireland iyo Scotland wax badan ayay bedeleen. Saameyntoodii ayaa ilaa maanta ka jirta dhulkaas, laakiin
dhinaca kale dadyowgii Ireland iyo Scotland waxay dagaaladii Vikings ka dhaxleen isku duubni ay cid kasta oo soo weerarta ay meel uga soo wada jeestaan. qarnigii 10aad taariikhda miilaadiga markay ahayd 937 boqorkii reer Ireland ee Alfred ee dhalinyarada ahaa wiil uu dhalay oo markan ah boqor ciidan xoog badan wata ayaa dagaal kaga hor yimi Vikingskii deganaa Dublin iyo horgalladii ay wateen. boqorkani waa uu ka adkaaday Vikingskii waxaana guushani ka dhashay hal boqor oo mideeyay awooddii iyo xukunkii dhulka Ingiriiska. si kastoo hirdan iyo dagaalo waaweyn uga dhaceen dhulweynaha Ingiriiska, barwaaqada taalay dhulkani ayaa ahayd mid madaxdii Scandinavian-ka iyo Vikingsku ay ka samri waayeen. burburkii ugu darnaa ee Vikingsku dhulkan Ingiriiska kaga dabar go'i lahaayeen wuxuu dhacay sanadkii 1066 miilaadiga markaasi oo boqor Norwegian oo lagu magacaabo Hardrada. boqorkani oo loo yaqaanay Vikingkii ugu dambeeyay ayaa si surprise ku qabsaday waqooyiga England isagoo raba inuu boqortooyada oo dhan gacan ku dhigo, laakiin arrinkaasi waxaa ka hor yimi King Harold Godwinson oo ahaa boqor Ingiriis ah. waxay iskaga hor yimaadeen dagaalkii Stamford Bridge. ciidamada boqorkan Ingiriiska waxay qabsadeen boqorkii Vikingka ee Norwegian-ka ahaa iyo ciidankiisii. boqorkii Norwegian-ka ahaa dhuunta ayaa waran laga geliyay, sidaas ayuuna ku nafbaxay. boqorkii markuu dhintay ciidankiisiina cagtaa la mariyay dhammaantood iyadoon cidina ka baxsan. ciidamadii Vikingska waa laga ciribtiray dhulka jasiiradda Ingiriiska iyo Ireland. doonyihii dhaadheeraa ee maska dragonka afka uga ekaana way ka caageen xeebaha wadamadani, laakiin dadyowgii Vikingska saameyntoodii weli waa mid ka jirta dhulkani, gaar ahaan magaalada Dublin oo ah caasimadda dalkani oo ay iyagu asaaskeeda lahaayeen. waxaa ka jira dalkani kumanaan kelmadood oo English ama luqadda ay ku hadlaan dadka Irishka ah. bilowgii qarnigii 9aad boqortooyadii Frankishka ay lahaayeen dadkii Frankiska ahaa ayaa ahayd super power aan la loodin karin. waxay soo jirtay boqortooyadani ilaa qarnigii 5aad. waxay ka soo talinaysay wadamada France, Germany, Belgium, Luxembourg, Netherlands, Switzerland, Austria, waqooyiga Italy iyo qaybo Spain iyo bartamaha Yuruba. waxay haysatay boqortooyadani hanti ballaaran iyo dahab aan xisaab lahayn. waxay maamuleysay ganacsiga qaaradda Yurub waxayna lahayd kaymo hantida dhex taala aan cidi waardiyeyn oo la ilaalin. boqortooyadani hogaamiyahoodii markii uu geeriyooday waxaa qabsaday masiibo weyn. waxaa isku qabsaday xukunkii carruurtii uu boqorka ugu ahaa. dagaal sokoy ayaa sidaasi ku dilaacay. boqortooyadii awoodda badnayd way kala qaybsantay waxayna noqotay mid curyaanta. Vikingsku xagga badda iyagoo kasoo qoraansanaya boqortooyadan iyo dalkan Faransiiskaba waxay u arkaan chance fiican inay hantidan soo doontaan oo gurtaan. boqortooyadan isku jeedana wax baqdina kama qabaan. qarni dhac iyo boob iyo dil ayay isu diyaariyeen burcadii Vikingsku si ay u qabsadaan wadankan Faransiiska waxay howlgeliyeen doonyahoodii dhaadheeraa ee cabsida badnaa. markiiba si dhaqsa ayay usoo dhaqaajiyeen doonyahoodii dhaadheeraa waxayna istuseen in hantida boqortooyadana Faransiisku ay taalo meelaha lagu cibaadaysto oo ah kiniisadaha, maadaama boqortooyadana ay tahay mid Kristan ah. kiniisadaha ayay dahabka, silfarka iyo hantida oo dhan ku ururin jireen, wax waardiye ahina ma aysan lahayn hantidaasi. Vikingsku halkaa waxay ka arkeen chance aad u wanaagsan. waxay bilaabeen inay tuulooyinkii ay ku yaaleen kiniisaduhu weeraraan, dadka halkaasi joogana laayaan, hantida iyo dahabkana gurtaan. inta aan boqorka guud ee deegaanku qayladhaanta dirinna ay doonyahoodii dib u raacaan oo dhulkoodii u fakadaan. 10 sano ayay qaabkan u boobayeen hantida halkan taalla. dadkii Faransiiskuna wax awood amaanay lahayn aan ka ahayn inay ka ducaystaan in Ilaahay ka qabto masiibadan ku habsatay. taariikhdu markay ku beegnayd 845 miilaadiga nidaamkii weerarada gaagaaban hantida loogu soo dhacayay way ku qanci waayeen Vikingsku. markan waxaa hogaamiye u ah Vikingska Ragnar wuxuu isku keenay 120 doonyood oo ah kuwii dhaadheeraa kuwaasoo sida 5,000 oo dagaalyahan. markan ma socdaan meel ka sokaysa caasimadda dalkani ee Paris. hogaamiyihii Vikingska ee Ragnar wuxuu ciidankiisii ku wareejiyay caasimaddii Paris
boqorkii halkani haystay ee Charles ayaa isu soo ururiyay ciidan si uu magaalada u difaacdo, laakiin Ragnar ayaa jebiyay ciidankii Charles. maadaama ay ciidankii Frankishku kala qaybsanaayeen, kala barhkood ayaa laga adkaaday. Vikingsku maxaabiistii ay qabsadeen waxay ku horgowraceen dadkii Faransiiska ahaa si ay u baqdin geliyaan. magaaladii caasimadda ahayd ee Parisna sidaasi ayay gacanta ugu dhigeen. boqorkii Frankishka ee Charles oo tala ku cadaatay, kana baqaya in caasimadda iyo boqortooyadiisa oo dhan ciidda lagu daro, ayaa Vikingskii usoo bandhigay qorshe aad loola yaabay. wuxuu ku yidhi, waxaan idin siinayaa in ka badan 3,000 oo kiilogaraam oo dahab iyo silfar ah ee iskaga kaaya taga oo hana burburinina. Vikingsku markan waxay ogaadeen baqdinta Faransiiska ku dhacday inay faa'iido badan ka heli karaan. dahabkii iyo silfarkii ayay doonyahoodii ku gurteen, wayna iska baxeen. Vikingsku markan waxay la laabteen guul ay si fudud u gaadheen, laakiin boqortooyadii Faransiisku ma aysan ahayn mid si fudud cagta loogu hayn karo. dib ayay isu soo abaabuleen, labadii qaybood ee ay u kala jabeen ayay isku soo darsadeen, iyagoo midaysan oo diyaar u ah haddii mar kale Vikings ku soo laabtaan inay iska difaacaan. ayaa 881 miilaadiga markay ku beegnayd taariikhdu, ciidan ballaadhan oo Vikingski ah gudaha u soo galeen galbeedka Faransiiska. waxay isleeyihiin markana si fudud ayaad guul uga soo qaadaysaan oo dahab iyo silfar baad soo daldalan doontaan. laakiin arrinku markan sidii hore ma aha. waxaa talada haya boqor dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Louiskii saddexaad. ciidamadii Faransiiska oo isku duuban ayuu kala hortagay Vikingskii galbeedka waddankiisa soo galay. markiiba ciidamadii Vikingska cagta la mariyay, waxaana laga dilay 8,000 oo ciidamadii Vikingska. halkaasina waxaa ka cadaatay in Vikingska haddii la isu kaashado la iska celin karo, dhulkana laga difaacan karo. markan Vikingsku waxay dib ula laabteen guuldarro aanay filayn, horena aysan u arag mid iyada la mid ah. laakiin Vikingsku waa budhcad madax adag, dhimashadana aan ka baqin. waxay qorshaysteen inay dib isugu soo diyaariyaan inay mar kale kusoo laabtaan Frankishka iyagoo sidii hore ka adag. 885 miilaadiga markay ku beegnayd, iyagoo ciidan ballaaran oo ilaa 700 oo doonyihii dhaadheeraa wata iyo 30,000 oo dagaalyahan ayaa usoo dhaqaaqay dhinaca caasimadda Faransiiska ee Paris. markan waxay rabaan inay cagta mariyaan wixii ka hor yimaada. ciidamadii Frankishku sidii hore way kasii adag yihiin, dagaal iyo difaacna way isku diyaariyeen. waxay jareen wadooyinkii soo gelaya caasimadda Paris, biriijyadii ayay xidheen, dhinacii webigana waxay ka buuxiyeen dhagax aan doonyuhu uga soo tallaabi karin dhinaca caasimadda Paris. Vikingskii waxay soo gaadheen caasimadda hareeraheedii oo ay boqolaal ciidamadii Frankishka ahaa difaac kaga jiraan. dagaal socday 11 bilood oo waqtiga qaboobaha ahaa, oo barafku da'ayo, dagaalkana aan laga nasanayn. ciidamada Vikingskuna weerarka aanay kala joojinayn si ay u jabiyaan difaaca Frankishka, laakiin ay awoodi laayihiin inay gudaha u galaan caasimadda. ayaa boqorkii Frankishka ee waqtigan oo ahaa mid jilicsan u ogolaaday in Vikingsku laaluush la siiyo oo dahab iyo silfar ay qaataan, weerarkana ay ka dulqaadaan caasimadda. Vikingska oo markii horeba ujeedkoodu ahaa inay hanti helaan, ayaa dahabkii iyo silfarkii qaatay kuna laabtay dhulkoodii. laakiin dagaalkan waxaa lagu xaqiijiyay in haddii difaac adag la galo, doonyihii dhaadheeraa ee ciidamada Vikingska laga hor istaagi karo inay gudaha usoo galaan magaalooyinka iyo caasimadihii Yurub. sidaasi kuma aysan quusan Vikingskii. markoodii ugu dambeeyay ayay ku soo noqdeen Faransiiska. hogaamiye Rollo la dhaho ayaa wata markan. hogaamiyahan iyo ciidankiisii ayaa soo weeraray dhinaca waqooyiga Faransiiska taariikhdu markay ku beegnayd 911 miilaadiga. Vikingsku waxay rabaan magaalo Chartres la dhaho oo hanti badan taalo inay qabsadaan. ciidamadii Frankishka oo isku duuban ayaa dabin u dhigay Vikingskii. dhexda intay gashadeen ayay isu qabteen. dagaalkana waxaa ku gacan sarreeyay ciidamadii Frankishka, laakiin Frankishku waxay xaqiiqsadeen in weeraradan aan dhammaadka lahayn ee Vikingsku aanay dan u ahayn labada dhinac midna. markaasi boqorkii Frankishka Charles ayaa hogaamiyihii Vikingska ee Rollo usoo bandhigay heshiis aan caadi ahayn.
Rolo waxaa loo oggolaaday in dhul ballaadhan laga siiyo waqooyiga Faransiiska, halkaasna isaga iyo ciidankiisu ay degaan, laakiin taas beddelkeeda uu qaato diinta Kiristaanka, sidoo kalena uu biyaha Faransiiska isagu ka difaaco weerarada dambe ee dhinaca Vikingska kaga imaan doona. Hogaamiyihii Vikingska ee Rolo ayaa heshiiskii aqbalay. Boqor Rolo iyo ciidankiisii halkii ayay degeen, deegaankiina waxaa loo bixiyay The Land of Northmen. Sannado aan badnayn kadib, Rolo iyo ciidankiisii Vikingsku dadkii Faransiiska ayay dhex galeen, diintii Kiristaanka ayay wada qaateen, dumarkii Faransiiska ayayna wada guursadeen. Magacoodii hore ee burcadda baddana waxaa loo bedelay magaca cusub ee The Normans, oo la micno ah reer waqooyigii. Weeraradii Vikingsku ay Faransiiska kusoo qaadeen kuma aysan dhammaan inay dhulkan iyo boqortooyada dalkani la burburiyo, laakiin waxay kusoo gabagabowday in dadkii dhulkan deganaa ay qayb ka noqdaan taariikhdii dhulkanna ay baal dahaba ka galaan. Markaan maqlo Vikings, waxaa maskaxdeena kusoo dhacaya weeraradii boqortooyada Ingiriiska iyo doonyihii dhaadheeraa ee biyaha Faransiiska gaala baxayay, laakiin weerarada Vikingsku intaa way ka badnaayeen. Vikingska qaybtii galbeedka deganaa waxay argagax ku rideen wadamadii galbeedka Yurub ku yaalay. Vikingskii reer Sweden ayaa ishoodu qabatay jaha kale oo aan markii hore laga filayn, waa bariga fog. Vikingskii reer Sweden waxay ka gudbeen badda Baltiga, waxayna gudaha u galeen bariga fog ee qaaradda Yurub iyagoo isticmaalaya wadooyinka dhex maraya webiyada waaweyn ee Ruushka. Ujeedadu waxay ahayd inay dhexda u galaan ganacsigii ballaadhnaa ee isku xidhnaa ilaa Indiya ilaa Shiinaha. Safarkoodii ugu horreeyay wuxuu ka bilowday deegaanka Straya oo ah tuulo qadiim ah oo la aasaasay qarnigii 8aad, kuna taala dhulka maanta Russia iyo Ukraine la isku dhaho. Ciidan ballaadhan oo Vikingska ayaa tuuladan dhinaca webiga hal mar ka soo galay. Tuuladani waxay ahayd xarun ay ganacsatada doonyaha wadata ku nastaan, kuna sugaan ilaa cimiladu ka hagaagayso si ay u sii wataan safaradoodii dhinaca koonfureed u jeeday ee ay ku tegayeen dhulkii khulafadii Carabta ee Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta. waa dhulkii Carbeed ee Syria ilaa Ciraaq ee xarumaha u ahaa khulafadii Islaamka oo markan meel hantida ugu badan taalo. Khulafadan Carbeed waxay ganacsi xoog badan la leeyihiin qaaradda Afrika. Waxay haystaan ganacsi waqooyiga Afrika ilaa galbeedka Afrika isku xidhan. Dahab iyo silfar iyo adoomo bilaa xisaaba ayay dhulkaasi ka soo daldalan jireen. Vikingska oo meeshii hanti lagu sheego aan ka maqnaan ayaa Chinese weyn u arkay inay halka gaadhaan. Vikingsku waxay fadhiisteen bartamaha suuqa ganacsiga ee Bolgar. Bolgar waa magaalo ganacsiyeed ku taalla webiga Volga ee wadanka Russia. Magaaladani waxay isku xidhaa wadamada Scandinavian-ka, khulafadii Islaamka, bartamaha Aasiya ilaa wadada Shiinaha tegaysay. Markan Vikingsku weerar dhinaca Aasiya kuma qaadayaan, laakiin qaab ganacsi ayay rabaan inay hantida Aasiya iyo khulafada Islaamku haystaan inay ku helaan. Hantida iyo ganacsiyada ka imaanaya Shiinaha waxay soo marayaan bartamaha Aasiya oo ah halkii khulafada Islaamku joogtay. Halka markay ka soo gudbaan hantidii Shiinaha iyo tii khulafada Islaamka ka timi waxay soo gaarayaan magaalo ganacsiyeedka Bolgar oo ay fadhiyeen Vikingski. Vikingska halkan waxa uga furan ganacsi ay wadadaas sii marinayaan oo ilaa Aasiya geynayaan, gaar ahaan khulafada Islaamka oo qarniyadii 8aad ilaa 10aad hanti aad u badan haystay. Vikingsku waxyaabaha ay dhoofinayaan waxaa ka mid ahaa dhogorta xoolaha iyo xayawaanka, malabka, xabagta iyo adoomihii ay ku soo qabseen dagaaladii wadamada ay ku qaadeen. Waxay ku bedelanayeen silfar iyo lacagta dirhamkii khulafada Islaamka. Waxay qorshahan wadeen ilaa dhammaadkii qarnigii 10aad markii khulafada Islaamka ee Carbeed dahabkii iyo lacagtoodii ay yaraatay oo ay musallas gaadheen. Intan kuma aysan ekaane Vikingsku waxay u sii gudbeen oo gaadheen magaaladii Byzantium la oran jiray, markii dambana loo bixiyay Constantinople, haddana loo yaqaan Istanbul oo ah caasimadda Turkiga. Vikingsku markay halkan yimaadeen waxay arkeen magaaladii ugu qanisanayd intii ay magaalo soo marayeen. Sidoo kale dhismayaashii iyo xadaaradii halkan taale ayaa fajac ku noqday.
waxay halkan keeneen ganacsigoodii dhogorta iyo cambarka oo ah habag geed oo markay adkaato dhagax isku bedesha hadhowna jewelry ama qurxin loo isticmaalo. waxayna ku bedelanayaan silki, khamriga waynka, bisbaasyo iyo dhagxaan macdana oo markaasi Scandinavia ka qiimo badan ka jooga. inay magaaladan Byzantium ilaa Scandinavian-kaadii u kala safraan Vikingsku waxay ku qaadanaysaa bilo badan. waxay dhexda kula kulmayeen barafkii darnaa ee bariga Yurub. meelaha qaar boqolaal kiiloomitir ayay doonyihii dhaadheeraa gacantooda ku qaadayeen maadaama barafka uu daboolay webiyada korkooda. markaasi waxay ku qasbanaadeen inay isticmaalaan fardo ku dul ordo webiyada barafka noqday korkooda ama webiyadan barafku daboolay. doonyihii dhaadheeraana sidaasi ayay ku jiidayeen si ay safarkooda usii wataan. Vikingska guushooda u badan waxay ka timi aqoontoodii ay u lahaayeen safarada dhaadheer sida loo galo iyo u adkaysigii cimilooyinkii darnaa iyo ganacsigoodii ay la samaysteen xabaaradihii qadiimiga ahaa. Vikingsku kuma aysan ekaan inay safaradooda Yurub iyo Aasiya ku koobaan. arrinka mucjisada noqday ee taariikhda u galay waxa weeye markii ay damacooda u jeediyeen dhinaca Mareykanka inay gaadhaan. qarnigii 11aad ayay ahayd markii ugu horeysay ee cagtooda soo dhigaan cariga North America. waa 500 oo sano ka hor inta Christopher Columbus kii soo helay America aanu halkaasi indha saarin. waxay ka dhigan tahay inay 5 qarni ka horeeyaan Christopher Columbus. Vikingsku waxay mareen dhinaca Norway, waxay u sii gudbeen Iceland, waxay uga sii gudbeen Greenland, halkaasi ayayna North America ka galeen. Mareykanka markan waxaa degan dadkii asalka ahaa ee lahaa deegaankan waa dadkii indigenous-ka ahaa. markii ay soo gaadheen Vikingsku halkan waxay iyaga iyo dadkan deegaanka lihi isku fahmi waayeen qaab ganacsigii waxayna sababtay inay isku dhacaan. Vikingsku waqooyiga America kuma aysan raagin, waxayna halkaasi joogeen kaliya 10 sano. inay ku nagaan waayaanna waxaa u sabab ahayd in meesha ay ka yimaadeen iyo halkan ay aad u kala fog tahay. in dadkii Vikingska ahaa ee Greenland deganaa ay ahaayeen dad dhowr kun oo qof ku kooban, sidaasina aan gacan ku siin karin inay waqooyiga America Vikingsku gumaystaan maadaama Greenland ay tahay meesha ugu dhow ee North America ay ka degan yihiin dadka Vikingsku. sidoo kale arrinka ugu weyn wuxuu ku qabsaday dadkii indigenous-ka ahaa ee dhulka lahaa oo dagaal kala horyimi dhulkoodiina ka difaacay inay Vikingsku qabsadaan. arrimahaasi oo iskaashaday ayaa sababay in Vikingsku ay dhulkoodii iyo Scandinavian-koodii ku guryo noqdaan. Vikingsku waxay dunida dacal ilaa dacal duulimaad tagayeen 3 qarni, waa 273 sannadood maadaama ay bilowgii diin iyaga u gooni haysteen. taasi waxay u saamaxaysay inay kiniisadaha Kiristaanka iyo wadamada Kiristaanka weeraraan. laakiin markii dambe isdhexgalkii iyo meelihii ay tageen waxa ay ka sameeyeen isguursi iyo dadyowgii reer Yurub inay ku milmaan. taasina ayaa sababtay inay diinta Kiristaanka intooda badani ay qaataan. sidoo kale taasi waxay u saamaxday inay ganacsi xor ah la yeeshaan wadamadii dunida, weeraradiina ay yareeyaan ilaa markii u dambeysay diintii Vikingska loo aqoonsaday inay tahay tan Kiristaanka. sidaasina waxaa ku soo idlaaday waayihii dilka, boobka iyo adoonsiga ee Vikingsku dunida ku lahaayeen. haddii aad ilaa halkan la soo gaadhay oo ah muuqaalka dhammaadkiisa, waxaan ka codsanayaa channelkeena subscribe saarto, sidoo kale muuqaalka like ta ka ilaawin. nabadgelyo.